anigu berigi hore aan ka qaxay ceer gaabo waxaan u qaxay Yubbaan markii hore u qaxay markaasaan ka sii qaxdo baran u qaxay intaan dhulka joogo dhandee needeed ma deganay haday aftiyaashood joogaan maanta Maxamed Ducaale iyo ninka la yiraahdo Maxamed Bulxan aniga aftiyaashay maanta ma joogaan maanta way naga maqan yihiin 39 markii la soo galay reerkii ugu horeeyay oo soo galay reerkayga haday aftiyaashood joogaan maanta Maxamed Ducaale iyo ninka la yiraahdo Maxamed Bulxan aniga aftiyaashay maanta ma joogaan maanta way naga maqan yihiin insha Allah waxaan rajaynaynaa inay yimaadaan insha Allah bismillaahi kariim waa dalkoodii waa ehelkoodii waa dadkoodii insha Allah waa iman doonaan insha Allah shirna waa ku jiraan nin walba gurigiisa iyo diyaartiisa wax u dhaamaan ma jiraan anigu berigi hore aan ka qaxay ceer gaabo waxaan u qaxay Yubbaan markii hore u qaxay markaasaan ka sii qaxdo baran u qaxay intaan dhulka joogo dhandee needeed ma deganay 39 markii la soo galay reerkii ugu horeeyay oo soo galay reerkayga nin walba markaa wuxuu dareemayaa maanta qaxootinimada wuxuu leeyahay nin kasto aan magaaladiisa ka tagay waa qaxooti haddii Burca la tagay haddii Hargeysa la tagay haddii Boorama la tagay haddii Bari la tagay ilaahay mahadi weey markaa nin walba inuu gurigiisa isagoo nabada ku soo noqdaan rajaynaynaa waxaan aad ugu mahadnaqayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Ciro oo gogosha nabadda inoo dhigay oo sanaag u dhigay oo weligiiba ku taamayay war ceer gaabo hala nabadayo sanaag hala nabadayo waxaan uga mahadnaqan aad baan ugu mahadnaqayn mahadad dawadeed maanta anagu gogol xaar baanu ahayn 7 baanu ahayn 5 wasiir iyo 2 guddigii nabadda ee madaxweynuhu magacaabay Duur iyo Cali Reegal iyo xoogayihii madaxweynaha Mubarak iyo 2 xildhibaan baanu ahayn 10 kaasaanu ahayn waxaan u soconay anagu inaanu gogosha wadxa ka sii gorno meel fiican bay marayaan qolada warsangeli madaxweynuhu harti waqooyi oo dhan waa u dhigay gogosha hadda maanta cidda aqbashay oo ka soo jawaabtay gogosha madaxweynuhu dhigay waa beesha warsangeli qabanqaabadeedii insha Allah waa soo socdaan soo gelayaan hadda halka waxay naga jooga Jaamac Arab iyo Maxamuud Ali Muuse labadaasay naga joogaan intii kalena waa soo socota insha Allah waxaan rajaynaynaa insha Allah 93 markii halka nabaddu ka dhacday raggii nabadda u guntaday waxaan u maanayaa wax yar baa ka nool intii dhimatay Allah u naxariisto ilaahay jannatul firdaws ala hageeyo waa loo soo lugeeyay gooyaasha la isu tuuray waliba de hadda inta beriga inaga dhimatay oo dagaaladii inaga dhimatay hadda inaga ma dhiman waa yartahay wax weyn hadda ma dhicin xoogaaga kala guurka mooyaan iyo qulqulta mooyaan laakiin beriga tiid weyneed oo la yiri wixii dhinaca jireen daad ku qaado wixii dhinaca jireen dabayshu qaado si fiican bay nooga soo gudubnay 30 sano inuu nabad ku naaloolaynay haddana maanta waxaa dhacay shaydaan baa ka adeegay nabad wax ka macaan ma jirto dalku nabad uu isku dhaafay halka madaxweynaha la leeyahay waa imanaya oo bahashi mashaariicdu way noo dhigayaa ber hore madaxweyne maxaad u dhigi weyday sanaago deesu soo noqday buu yiri heshiiya ilaa meel lagu kala maqan yahay waxba dhigi maayo insha Allah haddana mashaariic badan waa soo wada madaxweynuhu waa keenaya ilaahay safarkiisa uu ku tagayna ku guuleeyo isaga nabad ilaahay hay noogu keeno waxaan ku soo gabagabeynayaa nabadda cid kasto inaga mid ha u guntato
kuwa meelaha ka qaylqaylayo oo dhangaangaalaha la yidhaahdo magaciisi cabdi shiro diiriye allah u naxariistay jannadii raxmaha ka warhabiye baa wuxuu ahaa raggii nabadda ka shaqayn jiray markii ugu dambeysay ka shaqaynayay markaasuu yidhi bahasha dhaandhaangaalaha ha laga ilaaliyo wy dhangaangaalaha ha laga ilaaliyo hadda waxaynu leenahay kuwa ka hadlaya tigtoortada iyo biradaa ka hadla waa dhangaangaalihii cabdi shire sheego yir ka ilaaliya waa ka ilaalinaa insha allah nabaddana waa calimo qoyan baynu kusoo dhaweyneynaa maanta qoliyaha halka jooga muuse ismaaciil iyo laba muuse dee iyagaa laga rabaa gogoshii sidii berigee loo dhigay inay maanta u dhigaan berigaa dee gogolyo ma jiro meel walba waa iska madhnay laakiin gogoshay maanta laga rabaa inay dadka u dhigaan soo dhaweeyaan qalbi fulan ku soo dhaweeyaan caaqilaadan isagoo jiidari ka hadlaya oo le nabaddii baanu diyaar u nahay dadka iyaga gacmo furan baanu ku soo dhaweyneynaa midiyahaan ka daawana waa ragga ku sunta nabadda boqor faysal waa ragga ku sunta nabadda boqor faysal wax badan baanu ka wada hadalnay wax badan baanu ka sheekaysanay warawa wasaynu yeellaa warawa waxgaynu ka gallaa ilaa Hargeysa waxaanu isla mar walba isla soo qaadayn dadkeena aan soo celin ilaahay maanta ka dhigay oo waqtiina siiyey oo maanta aynu haysanaa dawladina garab taagan oo nabadda diyaar u ah oo gacan nagu siinaysa berigaa 93kii cidina gacan nagu siin inaga isku tashanay laakiin maanta dawlad baynu ku tashanaynaa nabadda raadinaysa nin biyo madaadsha oo ururiya uu madax ka yahay hayin marka anagu hawsha uu noo soo dirayna waa nu guntanahay madaxdana waa ka guraynaa ilaahayna waa ku garab gelayaa heer gaabo sideedii iyo si ka wanaagsan ayay noqon doontaa insha allah bismillaahi kariim aad iyo aad buu mahadsan yahay boqorku hadduu boqorku marka dee lays ablaableeyo innaga warsangeli ahaan 3 muuse yoonis maxamed muuse iyo cabdixaamid waa saalax muuse baanu cid isugu xignaa odayaashii nabadda ka soo shaqeeyey allah u naxariistee dee aadan reerkiisa u badnaayeen halkaa markii ay soo socdeen odayaasha bashiir soo socday waxaa ka hortegi jiray taleex iyo tima weyne iyo jigraale iyo allah u naxariisto raggii waa dhinteen badankoodii waa dhinteen nabadda heegan u ahaayeen wuxuu igu yidhi ismaaciil xaaji nuur subax anigoo gurigayga jiifa oo maalintii ugu horreysay waa la yidhi bashiir baa soo galay markaa daydagii iyo wuxuu dhan baan dee la kala xirayn buu yidhi wuxuu yidhi waxaan isir beenu bashiir nabad ma ku gaadhaysa soo orday buu yidhi xeela anugu yimid wiil isagoo dhex fadhiyo saa loogu urursan yahay waxa uu ka yimid ninku war xaguu soo maray kowdii horta nabaduhu saasay ku yimaadeen waa ilaahay mahadii maanta dee waa la isaga dhow yahay waa la wada joogaa wadinkaa jooga warsangeli joogo iyo ogeyslabe aad iyo aad baa u mahadsan tihiin